salaantaada u diyaara cutubyo ka tirsan ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo kugu soo dhaweynaya akatabada armiska shaqo qaran mudane madaxweyne ku soo dhawow كحيس قويسكي ووحى قبيلكيو كحيس قويسكي وكويا قالين كويا قفنا نبوهي وكويا قالين كويا قفنا نبوهي شاقا قرن شاقا قرن شاقا قرن شاقا قرن
tago aqoonta ninkii ku qaday qoliyo kuma helo adeeg aqoonta ninkii ku qaday qoliyo kuma helo adeeg shaqa qaran shaqa qaran shaqa qaran 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 xaqaago la qaatiyo iqor waa laga tago aqoonta ninkii ku qaday qoliyo kuma helo adeeg aqoonta ninkii ku qaday qoliyo kuma helo adeeg shaqa qaran shaqa qaran shaqa qaran shaqa qaran الحمد لله إلهي ومحله هذه أدبار مهبرين يا شغقرا يسموه هذه أدبار مهبرين معلمين تودا ينتهي تابرتي أرضنا ما تخرج سهم بريو وحنا هذه أدبار فرح سنة مانتا إن هالدور كيسو مال اللان يا أقوياها كودي يدد كي يقول مضنا حق تعليمتا حق مامول حق ويرق أي كرسول ما يبقرين اللي يرادا حفلة حريتانكا دفعتي صدحات يا شقاقرا وحيرتها هذا انت اللي يسون لها يا لقى هذه لها حفلة المانتا يقرا كبا وليري انت هذا الشيء سيدي في عريضه هذا هل كاي كقاده ما كقاday halka ay dhigeen waa dhigay ko waxaan u kacay inaan ku dhawaaqno in maanta ay soo xirantay tababarkii iyo waqtigii la carbinayay dhalinyarada shaqo qaran ee dafcadii saddexaad maadkooda waxaa kaloo halkan soo taagay inaan sheego in dhalinyarada 300 ee inamada ah ee shaqo qaran loo tababaray ay yihiin laga bilaabo maanta kaydka ciidamada qaranka qaranku saacadu yeelanaa ay diyaar noqonayaan markaan soo koobo wixii maanta ay noo sheegeen odayaasha inoogu aqoon badan iyo dadka inoogu aragsan in badan baa taariikhda laydinka sheekeeyaa in badan baa la dhaha mustaqbalkeedii waxaan doonayaa qof waloo Somaliland hibaa daa kasta uu yahay iyo aqoon kasta uu leeyahay inuu isweydiiyo halka uu la doonayo inay Somaliland gaadho 10 sano soo socda dad badan oo halka jooga ahaan 10 sano soo socda talin maaya hadday nool yihiin oo noloshu gaarsiina wax laga yaabaa inuu cimraayo oo aanay shaqayn karin dadka la rabo inay ka fikiraan 10 sano ka bacdi xagee la tagayaa waa dadka dhaadhaxaadka ah dhalinyarada shaqo qaran jaamacada ka baxday ee ka mid yihiin kuwa badan ee kale ee aan nasiib u helin halkan iyo aqoonyahanka kale iyo dad kale da'da yar ee da'doodu 30 tahay waxaan jecelahay inay ka fikiraan Somaliland 30 sano ka bacdi markuu qofkaasi 60 jir gaaro sidee buu doonayaa inuu ekaato haddaynan taa ka fikirin oo aanu qofka higsigiisu halkaa noqon oonu cimrigiisa iyo daadsi ay soo eegin waxay la tahay inaan meel fog gaarin waxaa kaloo ku dardaarayaa inuu mabda'eenu ahaado ilaahay wuxuu noo abuuray bini'aadmi waa abuuray waxaynu nahay khaliifa waa power adduunyada inaynu maamulno bini'aadmi ilaahay u doortay qur-aankiisu ku sheegay mar haddii karaamadaani na siiyo bini'aadmi nahay haddaynu nahay Somaliland inagoo aayadaa raacayna qofka Somaliland da'du yahay halku joogo inuu ka fakiro haddii ilaahay xilkaa ku saaray xilkaa ka soo bax maxaa xilkaa laga soo baxayaa wax kasta oo bini'aadmiga ama noolaa wax u taraya inaad ku tacabto tacab xageed ka bilaabaysaa ciiddood ilaaliso noloshooda ciidday ku xidhantay geedkood beerto noloshooda geedka ku beerto qofka bini'aadmiga oo ku kasta uu yahay midab kasta iyo diin kasta uu leeyahay waxtar mooyee waxyeeladiisa aanad ku hamoonin
maxaa taa garab yaala hadday nolosha abdaa qaadano oo caalamka diimaha samaawaaweyga ah falsafadaha dhammaantood taa isku raaceen maxaynu ku daraaye garab socda waxaa ka garab socdoo kugu waajiba intaa kharibaysa ee baabiinaysa inaad ka hortagtaano waxay ku saaran mardaad khaliifo tahay markaa waxaan isku darnaa Soomaaliya haddaynu nahay inuu ahaado mabda'eenu noolaha waxtar adduunka waxtar bini'aadmiga waxtar wixii waxaa wanaagsan kharibayana ka hortag inaynu mabda'a ku shaqayno oo aynu intaa ku soo koobno maanta dardaarankeena waa intaa wixii wanaag oo helisaan wixii xumaan ka hortagtaan iyo dalkiina ka fikirtaan 30 sano ka bacdi xagee buu noqonayaa iminka waxa laga yaabaa dhowr tajribaatihiin 5 markaad gaadho xagee dowladda ka gaarayso markaynu taa isla garanayno hore u mari karnaa iyo mas'uul qaad karnaa waxaynu mahadnaqaynaa dadka noloshooda kun intii badnayd 180 huray inay dalka hore u mariyaan ee halkan ka hadlay ee macallimiinta professorada ee aadnale ee generaalana aad iyo aad baynu ugu mahadnaqaynaa waxaan ku soo koobayaa qodobka taariikhda aad ugu noqdo ilaahay mahdi waxa inoo hirgalay oo dhammaad inoogu dhow hooyigii qaranka taariikhda Soomaaliland ama museumkii waan isma dheer taariikh gaar u leeyahay waxa weeye khayriyadii laga bilaabay Hargeysa inay isku timaado odayaasheeda oo ay ku tashadaan oo darooda ka tashadaan wax badan uu soo maray halgamo badan uu soo maray taariikhda isagoo maanta waxa badan museumkii qaranka wuxuu u baahan yahay taariikhda dalka oo qoran laga wada qayb galo oo taariikhdeenu wanaag iyo dhibaato ahayd baa la dhigo oo qof waliba ka geysta qaybtiisa si ay ugu cibro qaataan dadka inoo imanaya iyo da'yarteedu waxaan ugu dambaysiintii doonayaa inaan dadka halkan joogo aan isbaro maanta waxaan iswaraaga ka soo qayb galay xafladan nin ka mid ah dhalinyaradii dalka dhibaatada weyn soo martay isagoo aroos la xidhay dil lagu xukumay 20 sano soo dhameeyay haddana noloshu soo noqday oo aan shaqo tagin ee haddana halkii ka bilaabay sama falka iyo dadka uu shaqeeyo maxamed baaru oo ah gudoomiyaha hay'adda xuquuqda waxa jecelahay in dadkaas bartaan ومعتصم محمد يرجع لما واحد جعله المويزم كان كقريب قران وحي صوم مريضة الله ورهوان سأنا